markii ugu horeysay maaha ayaan sameeyo filimkan wuxuu ahaa filimkii labaad ee aan Djibouti ku sameeyo waa filim aad iyo aad u xiiso leh. Filimkaasi markii Djibouti lagu sameeyay waxaa lagu daawanayay school English ah oo catabadiisu ama daaradu ay aad maaragtay u ballaarneed oo qaadayay ilaa 150 qof. Masha Allah dad badan ayaa yimid filimkaasi ayaa lagu galiyay oo tigara ayuu lahaa. Filimkaas wuxuu ahaa filim lagu magac daray Samir aniguna aan ka ah hogaamiye filimkaas aan actor-ka ahaa la doortay aniga aan qoray qisada director aniga ka ah producer. waa filim aad iyo aad u xiiso leh. waa filim run ahaantii qisadiisu ay tahay mid aad iyo aad u wanaagsan. waa filim ka hadlaya bulshada Soomaaliyeed badanka waxyaabaha dhex socda. aniga fikirka lagu dhaliyay in filimkaasi aan sameeyno amba waxyaabaha kaas oo kala waxa weeyaan filimada qaar oo filmaantu waxay ka mid yihiin waxyaabaha lagu xiiso badan yahay dadkuna aad u daawasho badan yihiin. markaas inaan filimkaas aan ku fikirno inaan sameeyno waxay go'aan anaga naga soo go'ay. markaas saas ay tahay filimkaasi waa filim ka hadlaya wiil iyo gabadh ay jeclaanay waa actor-da balse haddana waalidka ayaa maaragtay iyagoo yar ayay kala tegayaan. marka gabadha actor-da ayaa isku soo celinaysa waalidka. marka taas waxay caddaynaysaa yani mararka qaar in loo baahan yahay jacaylka yani ilmaha oo keliya yani hal maaragtay waalid uma baahno ilmuhu labada waalid u baahan yahay. marka yani waxaa ahayd dowlatus in waalidka marka isfuraan ama waqtiga furiinka marka uu bilaabo halka iyagu midka kale cadadiisa ay la weyn tahay yani ma arki karaan ama ma dareemi karaan xaaladda kusoo wajihi doonta ilmaha marka uu yaryahay. markaas waxaan rabnay filimkaas wuxuu ahaa filim ka hadlaya yani waalidka si kasta isku dagaalaan dadku way isguursadaan haddana way isfahmi waayaan mararka qaar way dhacdaa balse haddana mar hadduu ilmo dhasho waxaa loo baahan yahay inaad wada joogtaan because ilmaha waxa uu baahan yahay golgolin hooyo keliya ma baahna xataa aad u baahan yahay. maxaa yeelay iskuulka marka uu tago magaca aabihi ayaa loogu yeerayaa. iskuulka markuu khalad ku sameeyo khaladka dhaco waxaa laleeyahay aabbaha hooyada lama oranayo. haddii maamada uu soo kaxeeyana yani dhibaata dhacaysa moogtahay. wuxuu ahaa filim aad iyo aad u xiiso leh oo maaragtay mararka qaar ku xiiso gelinayay. wuxuuna ahaa taariikh maalintaasi 2021 aan bilaabnay. filimkaas wuxuu socday muddo 4 bilooda ayaa lagu dhameeyey. isla 3 biloodna wuxuu saarnaa masraxa teatrada oo musharaxiinta la sameynayay. 3 bilood kadibna uu soo baxay filimkii saas ayaa lagu magac daray Samir. marka laga soo gudbo labada waalid oo issaamaxaya annaga waxay ahayd hadafka noogu weyn. danka kale muxuu ahaa in ilmaha uu ku garab karo labada waalid masaaraxa u tahay yani nasteexa u tahay ilmaha moogtahay. taas oo kale ayaan anagu aad u jeclayn in ilmaha lagu garab karo labadiisa waalid ay haystaan waa mid aad iyo aad u xiiso badan. muhiimaddu ma aha aabbaha oo keliya amba hooyada oo keliya hata inkastoo hooyadu ay aad u qaadataa oo layloobi karin haddana waxaa loo baahan yahay waalidka in maaragtay ilaashadaan ilmaha. saasay tahay markaas gabadha iyadaas ku soo celinaysaa. taas waxaan ka tusinay yani qiimaha uu leeyahay jacaylka dhabta wuxuu yimaadaa guurka markaa gabadhaas ku soo celinaysa labadeeda waalid. saas ayay qisada maaragtay ku socotay. dhinaca kale waa jacayl actor-kii iyo actor-adii oo isjeclaanaya balse dhinaca kale waxaa taala isaga dhimanaya. wuu dhiman doonaa isaga. wuxuu leeyahay filimku part 2 ama episode 2 saa loo taqaanaan. filimkaas oo maaragtay lagu matali doono Djibouti ka meel ka baxsan oo aad iyo aad u qurux badan. filimkaasoo noqon doona filim dad cusub ay ka mid qaadanayaan xataa youtuberada qaar oo maaragtay oo caan ah ay ka qayb qaadan doonaan filimkaasi insha Allah.